warbixin ka hadlaysa doorashadii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo dhacday maalin Arbaca sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa la caleema saaray maalin Arbaca wixii ka dambeeyay waqtigaasi madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu doortay maalin Arbaca ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyadoo baarlamaanka federaalka Soomaaliya la horgeeyay maalin Arbaca oo ay ansixiyeen haddaba arbacooyinkaasi iyo waxyaabaha ka dambeeya warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay wariyahayaga bashka Ibrahim Burale Arbaca Khayresan iyo dawlad khayr qabta allo ka dhig kadib hiigsigii dheeraa iyo hadalhayntii culiseed 8 bishii tagtay ee February kuna astaysneed maalin Arbaca ah ayaa waxaa dalka ka curtay isbedel siyaasadeed oo jaan rogay jiha ahaan hogaankii dalka kadib doorashadii laga dhur sugayay in badan oo ka dhacday xarunta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee Efesoni ee ku leeyihiin magaalada Muqdisho taas oo lagu doortay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Muqdisho iyo magaalooyin badan oo dalka iyo dibadiisa waxaa ka bilowday dabaaldeg shacab iyo ciidan aan loo kala harin halka hoolka doorashada ee ka socotay kadib tanaasulkii ex madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhaarintii mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib 8 February maalin Arbaca oo ahayd bilowgii isbedelkii siyaasadeed ee dalka mar kale ayaa waxaa dhalatay Arbaca saameyn badan leh 23 isla bishii February maalintii madaxweyne Farmaajo munaasabad diiran oo ay ka soo qayb galeen wafuud ka socota in ka badan 120 dal laguna caleemo saaray madaxweynaha Soomaaliya ku guuleystay isla 23 February maalintaas Arbacada ahayd habeenkeedii in uu magacaabo ra'iisul wasaarihiisa cusub kaas oo ku magacaabay mudane Xasan Cali Khayre magacaabista Khayre kadib ayaa isna waxa uu maray dariiqii madaxweyne Farmaajo isla 8 bishii tagtay ee February oo ku beegneed maalin kale oo Arbaca ayaa si kalsooni badan ay u ansixiyeen mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo xildhibaanadii ka soo qayb galay wadartooda guud ay codka ugu shubeen isagoo si rasmi ah loogu dhaariyay xilkiisa isla maalintaas Arbacada ah magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala ladani arbaceysata ayaa gundhigeeda safareed hogaanka ee bilowgii waxa uu muuqataa haleyn badan iyo rajo culus oo hilow ahaan ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed ee u qaybsamay qaar qaxooti ku ah dalka dibadiisa iyo kuwa abaara saameeyeen iyo kuwa qarax iyo qalbi jab kula sugan dalka gudihiisa bashka Ibrahim Burale Somali Cable TV Muqdisho.